السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد ورد السلام يا ولكن ويفاز شاكر. ما تو حرب إذا لو ذاك قصيره هذا كوبن هذا منعكسن وأصلي هاي ونس كبهان إنه يصير يعني رب الله. مركب وديسكو كوبي إن شاء الله ساعة وقت بدأ كقارن. واحد شيء شيكو أنا قلت على هذا وهلي وأي كشكي سكبر السودانية ده وهلكن دقيق إنجليزك. marka run laga hadlayo Suudaaniyiinta iyo Soomaalidu dhaqan badan baynu ka rasimanay waxoogaa wax badan baynu ka simanay marka waxweeyaan gabadhan sheekadiisa ku koobaya gabadhan waa gabadh degan waddanka Ingiriiska waxay degan adigu waxa da'deedu waxay 34 ilaa 35 markii da'da ahayd waxay iska heleen wiil kale oo isna Suudaaniya oo ka yimi waddankii Suudaan ka yimi oo Ingiriiska soo galay marka way isfahmeen way iska heshiiyeen gabadhii wuxuu ku iskuulsanaa marka ninka waxa keentay hooyadii baa keentay wiilkan weyn hooyadii baa keentay oo Suudaaniyada idina waa Suudaan laakiin waddankii ku kortay marka gabadhu waxay degan guri consul oo dawladda leedahay oo rabtay inay markay iibsato gurigiiba diyaarsatay marka hooyadeed inanta wiilka hooyadii waxay ku leedahay markastaba gabadhan 4 weeye isku da'weeyay ninku ha gursan waa gabadh weyn wax yar bay dhalaysaa carruur badan ma dhalayso waa gabadh weyn weeyaan marka ha gursan marka in badan bay arrinta ay hooyadii u diiday marka waxa waad ku celiyana marka dawladda soo baxaan gabadha markii guurka diyaar loo ahaa bay gabadha tiruun ayuu wiilkii ku yiri diyaar u mihi waayo hooyaday raali kama aha guurkeenan hooyadana waxay leedahay gabadh kale ku keenaya marka inantii weyn jabtay Suudaantu waa anaga kale weyn qofka markii wax ka xumaad hayra oo guurka ka xumaaday inaan baa u jaray waa iska anaga kale weyn xogaa qofka markii wax ku dhacaan ama even qofka markuu dhaqaaleeyo oo ganacsigu ka rabaabo marka inantii waxay go'aan ku gaadhay diya jabka waxay go'aan ku gaadhay shaqadii fasax qaadatay iyadoo waxay nurse bay baratay marka waxay aaday Suudaan qofkuna Suudaan ma soo waxa ka baxday Ingiriiska waxay aaday Saudi Arabia si ay u soo cimraysato qofka markuu cimraysan Saudi Arabia ay tahay gabadhna way heshaa muhram qof yada kaxeeya marka abtigeed ba joogo waddanka Ingiriiska Suudaaniyiintu wada dhaqaatir marka run laga hadlay Ingiriiska marka la joogo marka way baxeen labadooda way tageen marka waxay tageen waddanka la yiraahdo xarabkii tageen waa soo cimraysteen abtigeed ba raacay marka waxayna Ilaahay ka bartay inuu guur fiican siiyo waxa dhibaatada ku dhacay Ilaahay khayr ugu bedelo iyadoo si iska oo hawsha si iska tahay ba isna meesha waxa yimi nin kale isna Suudaaniya oo isna 45 jir ah meelahaas da'daas say gabadhu sheegayso marka isna meesha wuxuu yimi lahayn inuu inta wax Ingiriiska ka baranayo oo dhaqaatiriyay Ingiriiska dhaqaatirta marka laga hadlayo Suudaaniyiintu aad u badan waddanka Ingiriiska waddankooda ka yimaadaan Ingiriiskuna inta badan xagga caafimaadka dhan dadkiisa ma barta laakiin dad baa yimaada waddanka xagga caafimaadka kuwaas uga qaabilsan anyway shirkadaas soo waxbay ninkiisna wuxuu ku duceeyay inuu gabadh wanaagsan siiyo iyaduna meesha timi marka abtigeedii ninka baa iskaranayay oo wali oo kale war soo garanaya Suudaaniyiintu iska qabiiliyo xaas soo garanayaan marka waxa ku tiri wuxuu waxa meesha inaan duceysto Ilaahay si xaas wanaagsan wuxuu inan baa jirtay waa abtaan u ahay oo iyadana halka joogta oo iyadana guriga sabtay gursato oo keena xumaaday oo ninkii baa u jaray wuxuu ku yiri inanta abtigo tahay way iskursadeen way ismeersadeen labadii qof sidii ku duceysteen marka gabadhu hadalkay wada wax weyn dadku ku qodbisay wax weyn in ay fiican tahay marka Ilaahay isku xidid waxa laga yaabaa wax aad rabtid oo saad rabtid kugu dhacay laakiin halka kale khayr kale Ilaahay ku sameeyo marka gabadha waxay leedahay gurigii consulkan deganaa ee dawladda leeyahay inta badan deganaa guriga wala iibsada gurigii ninkii wuu iibi waan wada iibsanay nolol fiican waa samaystay laba cunugna waa leeyahay marka meel bay ka qodbadaynaysi marka wax weeyaan markastaba waxa laga yaabaa qof aad jeceshay inuu ku adkaado laakiin bedelka Ilaahay wax ka qaba keenayo inta sabidare wadaagu khayr bay dirajeenaya assalamu alaykum